الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan kelmad wacyigelin ah oo bulshada ku socotaan ugu duubayaa hay-adda dhowrista tayada ee Jamhuuriyadda Somaliland oo iga dalbatay inaan kelmad diineed oo wacyigelin ah inaan ka yiraahdo oo shaqadoodu ay tahay iyo xilka saaran ee ummadda u saaran ilaahina yawmal qiyaamo uu kala su'aali doono ay tahay dadkan cuntadooda cabitaankooda dawadooda intaaba inay hubsadaan oo ay siiyaan iyagu marka ay hubsadaan shahaado ay ka marakacayaan ilaahay uga hor marakacayaan inay cuntadaasi cunto saalixa tahay cabitaankaasi cabitaan saalixa u yahay dawadaasi dawo tayo leh inay tahay horta xilka diineed ee saaran waa ka loo igmaday inay ummadda uga soo baxaana waa kaas marka ilaahay waxaan uga baryaa subxaanahu wa tacaala xilka ilaahay inuu ku asturo ilaahay yawmal qiyaamana iyaga oo beri oo ummadda xilkooda uga soo baxayna ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmaan ummaddanina ay u hayso marka abaal iyo garashada iyo garawsiba ay u hayso in xilkoodii inay uga soo baxeen insaanka noloshiisa caafimaadkiisa jiritaankiisa abuuritaankiisa intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa karaamay ilaahay wuxuu bacda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim walaqad karramnaa banii aadama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وها حقيقة أبو إلهي انتو دارتي حقيقة وها أبو إنا كرامي مركا إلهي إنا آذا كرامي أبو رتانكي سيبو كو كرامي روحي سيبو كو أفوفي نفتي سيبو كيالي إن أن قردرو إن أن لقدلين وح الله لوحي نفتا نبيا ee dhaawaca ee caafimaadkiisa wiiqaya ee jiritaankiisa ka hor imanaya ayuu ilaahay xaaraantimeeyey markaasaa wixii caqliga banjarinayna xaaraan uu ka dhigay naftiyo la dhowrayo bogga wax allaala wixii lagu ridayay xaaraan ee caafimaad darro ee dhibayana uu xaaraantimeeyey ibtiisana la yidhi ilaali oo farjigaagana xifdi la yidhi si uu qofkaasi qof u dhammaystiran uu maxay tolay uu noqdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala naftan bani aadamka agtiisa qiimo sa ay uga leedahay cid allaale ciddii ilaalisa naftaa wax allaale wixii dhibayana ka ilaalisa ilaahay abaal bay ku leedahay cid allaale cidda nafta qoonta ama disha ama xaqdarro ku dishaana ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala dambiilo weyn ayay maxay tole ka tahay ilaahay wuxuu yidhi waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha wagadiba allahu calayh ولعنه وأعد له عذابا عظيما قفكي دلا قف مؤمن ولكع دلا أبا المرنتي سوى جهنم وكوار دونا إلهي با وعروريا لعنة أيا كركيسة عذاب وين إلهي با وقتلقلي مركا ما أها نفط أول الدلا قفك wax markaaba dadajinaya lagu dhufto uu kaliya ma aha cunto aan tayo lahayn oo loo soo miisay oo laga iibiyo oo caafimaadkiisa dhaawacda long termiga waqti dheer kadib dhaawacda waa naf adishay cabitaan dhacay ama sumaysan oo dadkii aad ka iibisa uguna qarisan inuu yahay cabitaan oo ku dhaawacmaan cudurro waaweyn ilma qof dadka ay ku dhacaan nafta waa dishay dawo aan tayo lahayn oo markuu u bukoodo isku daweyn lahaayo dawo bilaa tayo ah oo aad u keentay oo isaguna isleey waad ku caafimaad cudurna uu ka sii qaado waa dishay intaasiba waxa ay leedahay aayadaasay soo hoosgelaysaa waman yaqtul mu'minan mutacammidan ulakac qofka mu'min u dila ama ku dil maxay tole bir ama rasaas ama god ku rid ama gebi ka tuur ama dawo qaldan u miis ama cudur cunto dhacday maxay tole u keen ama cunto tayadeedii soo kala shaxaaday ama dawo aad tayadeedii soo kala shaxaatay si aad lacag badan ugu heshid dadkaaguna ay ugu gumaadaan ay ugu ba'aan samee intaasiba waa kaa xaaraan laba kelmadoodba markaa aan idhaahdo haddii ilaahay kelmadi waxa weeye tujaarteen iyo ganacsatadeen dadka u soo qaada cunto tayadeedu dhacday oon tayo lahayn ama dawo aan tayo lahayn u soo qaada ee maxay tole ka iibisaa hantida aad ka kasbateen waa xaaraan
ubadkiina waxa aad ka quudinaysaan waa xaaraan, dharka aad ka iibsanaysaan waa xaaraan, hantidaa ummaddiina aad ku sirteen, guryaha aad ka dhisateen waa xaaraan. iskarada aad masaajida ku dhistaane, waxba naftiina ha ugu sheekeynina masaajid baanu ka dhisnay lacagtii, wax allaale wax halkaa idinka xidhan haba yaraatee ma jirto. ha idiin yaraato, ilaahay baa idiin barakayn doona. ummaddiina walaalayaalow ilaahay uga baqa, u keena cunto caafimaad qabta, dawo tayala u keena, halkaasna ilaahay risqigiina ha idiin barakeeyo, ha idiin bulaalo, bul allah idiin waanu idinku ducaynana. haddii aad maxay tole ummaddaa laga dayn waayo dawooyinka dhacay iyo dawooyinka bilaatayada ah iyo cuntooyinka bilaatayada ah ee loo soo miisayo, cid aan ilaahay ahayn oonu idinka hoosgalna garan mayno. ilaahay baanu idinka hoosgalaynaa, ilaahay baanu magantiisa nahay, ilaahay baanu idinku xawilaynaa. kelmaddii weyneyd baanu leenahay xasbuna allaahu wa nicma alwakiil. ilaahay baanu ka cuskannay, cid la cuskadana ilaahay baa ugu weyn. kelmadda labaad waxa weeyaan waa hay-adda dhowrista tayeed. idinkana xil baa idin saaran, xilka idin saaran waxa weeye fattaqu llaha ma statactum. taag iyo tamarba meesha idin dhigto inta aad kartaan ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala. oo maxay ilaahay uga baqa? ilaahay waxaad uga baqdaan ha sii daynina cunto bilaatayo ah, dawo bilaatayo ah oo laabkiina soo martood ku xukunteen inaanu aadamuhu cuni karaynin ama aadamuhu isticmaali karaynin ama aanay ahayn wixii loogu talagalay waxan ee gacantiina soo hoos gasheed hubsataan. qabta, gacan bir ah ku qabta, cidna ha u habranina, ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala xilkiina uga soo baxa sida ilaahay idinka rabo. haddaydaan karaynin oydaan arrintaa ku dhaceeda haddaydaan lahayn, xilka iska wareejiya, ka taga, ma fulin karna dhaha. doonta arsaaq kale, ilaahay baa arsaaqda bixiya subxaanahu wa tacaala. inta laakiin halka aad joogtaan, waajibka idin saarani waxa weeyaan inaad ilaahay ummadda uga baqdaan. dhammaanteen wadaad iyo waranle, taajir iyo sabool, dowlad iyo shacab, ilaahay haynu ka baqno, ilaahay haynu ka baqno, ilaahay haynu ka baqno. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.